kadib khilaafkii maalintii shalayta ahayd ka dhashay halkan oo ah aqalka golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina sababay kala qaybsanaan iyo gacan ka hadal ka dhaxdhashay xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa maanta halkan warbaahinta kula hadlay xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland waxaana madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumadda uu ku eedeeyay in ayadu kala qaybsanaan ay ka dhaxwado mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun waxa uu fariin u diray ciidamada booliska Soomaaliland gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska Sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhe Dabagale waxaan taliyaha u soo jeediyay inaan mar dambe amar la'aan aanay ciidanka booliska Soomaaliland soo galin xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxa keenay inaan banaanka ku hadlo duruuf jirta shalay goloweynaha wakiilada Soomaaliland waxa ka dhacay arrin runtii lafjab ku ah jiritaankeena dawladnimo lafjab ku ah sharciyadeena lafjab ku ah sharafta golaha lafjab ku ah rajada shacabka codka golaha xildhibaanada jooga siiyay runtii damqasho badan iyo dareen aad u weyn bay dhalisay golihii wakiilada dhexdiisa inay xabadi ka dhacdo ma jirto sabab ay isugu imanayaan nin ciidan ah oo qaran kugu dirtay ilaalinta amniga iyo nin xildhibaan ah oo xasaanad leh oo u xil saaran xeerarkii nolosha bulshada Soomaaliland lagu hagi lahaa inuu sameeyo arrintaasi waxay keentay anfariir iyo amakaag ay shacabku kaga falceliyeen isku dhaca xildhibaanadu waa wax dhaqan ah waxaana keenaya kala duwanaanshaha aragtiyaha ay xildhibaanadu huwan yihiin Soomaaliland kuma eeka laakiin waa sawrac iyo tilmaam ay kala siman yihiin baarlamaanada dunida xildhibaanadu iyaga isku baarlamaana iyaga haddii beelbeel loo xisaabtamo beesha baarlamanka iyaga isku kuraasa iyaga walaala iyaga wada jirkooda inaga wada jecel isqabsigii shalay iyo faraka hadalkii xildhibaanada qaar dhex maray markiiba waa kii dhamaaday oo taasi bartaasi ku dhamaatay haddaba meesha waxa taallaa goorma qof ciidana oo diray suwani oo xildhibaan gacanta u qaadi karaya goorma qof xildhibaani qof ciidana gacan u gaari karaya koosa fashinka noocaas maxaa keenay kala dambeyn la'aantii hay'adaha dawliga maxaa ku dhacay qaranku wuxuu ka kooban yahay saddex dhadhaar dhadhaarka koowaad waa dhadhaarka fulinta iyo dhadhaarka xeerdejinta oo golahana iyo dhadhaarka garsoorka saddexduba awoodo kala xadidan buu dastuurku si mid kastana sharciyadiisa jiritaanka qaanuuneed buu ku dhisay faragelinta midba midka kale faragelinaya waa xaraan golahani waa golo ka madax bannaan xisbiyada waa golo ka madax bannaan xukuumadaha waa golo loo xil saaray inay sameeyaan xeerarkii taabanayay nolosha horumarka horu socodka bulshada Soomaaliland waa golo laga sugayay inuu soo saaro xeerar taabanaya wax bulshada Soomaaliland tabayso golahan waxa lagu hayaa faragelin qaawan baa lagu hayaa cidda ku haysaana waa madaxtooyada Soomaaliland ayaa faragelinta golaha laga wadaa oo la doonayaa in laga siyaasadeeyo madaxweynaha Soomaaliland wuxuu madaxweyne ku yahay wuxuu dalka taladiisa ku hayaa wuxuu head of state ku yahay wuxuu dastuurka xuquuqda ugu qoran uu ku haystaa waa sharciyad golahana wuxuu wax ku yahay waa sharciyada mudane madaxweyne adigoo odaygii qaranka adigoo mas'uulkii dalkan lagu doortay adigoo 82 xildhibaan ee golaha joogaba inamadaada yihiin adigoo danta qaranka kala wada hadli karaya adigoo Soomaaliland odaygeedii waa ku ayaan dariya arin xumo inaad subax kaste xildhibaanna tiro kooban madaxtooyada intaad kula shirto aad ka soo umaamado khilaafka golaha
arrin xumada kale jirtaa waxa weeyaan in hay'adihii kale dawliga ahaa ee dhexda ka noqon lahaa qadiyadahan loo isticmaalo propagandada golaha waxay la muuqataa arrintaasi arrin odaynimo iyo mas'uuliyadeed maaha isku wadka golayaasha taladooda ka dhex noqoshahooda intaasiba waa mas'uuliyad ku saaran oo odayaad ku tahay haddii sharciyadda golaha meesha laga saaro haddii jiritaanka golaha aad aqbali weydo haddii khilaafkan hurintiisa qayb aad ka sii ahaato waxay iman doontaa sharciyadaada madaxweynenimo inaanu goluhu aqbali doonin waxaan kuugu baaqayaa anoo ixtiraam iyo qadarin ku haya madaxweyne qarankaata sharaftaada iyo hogaamintaada iyo wanaaggaagu wuxuu ku jiraa inaad odaynimo dalkaad ku dhaqdo muddada sanadka kuwa hadda ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidamada qalabka dalka sida waa ciidamo ka madax bannaan siyaasadda waa ciidamo u xil saaran nabadgelyada waa ciidamo aynu ku gamaano amnigooda waxay ku ekeed madaxweyne ciidamada dhaxmaha dhacaya doonaya baxnaanadooda ee jaakeedada u baahan ee kabkooda nololeed u baahan ee daryeelka qoysaskooda u baahan ee caafimaadkooda u baahan in qoriyo loo soo dhiibo may ahayn in xildhibaanada xabad madaxa loo mariyo may ahayn in daryeelkooda aad ka shaqaysa bay in ciidan la caynada ciidamada dunida ay noqdaan bay ahayd shalay wixii bartaa ka dhacay cidda mas'uuliyaddeeda qaadaysa cidda ku ceebaysan cid kale maaha waa madaxweynaha balaayaafka lagama dhowro hadday taasi sidaa ku sii socotana foolxumada somalilan ayaa bilaabmaysa mana jecelin waxaasi inay dib ay dabadayso u dhacaan somalilan mida somalilan wada jirta somalilan sharaf leh somalilan haybad leh somalilan caalamka la jaan qaada somalilan dunidu hiranayso ayaanu jecelnaa waxaana ku imanaysaa in mid qaranku wada noqdo anigoo afka golaha aan ku hadlaynin oo afkii xildhibaankayga ku hadlaya oo aragtidayda dhiibanaya oo goloweynaha shir guddoonku uu ku hadli doono waxaan qabaa ciidamada anigu shakhsiyan tixgelin gaara baan u hayaa golahanna waxaa ka go-an 82 iyaga xildhibaane kala aragtida duwan ciidanku qaybo kasta oo uu qaranka uga adeegayaba daryeelkooda mushahar qoys caafimaad iyo labisba in miisaaniyaddan lagu daro waa commitment-kay ka wada siman yihiin xildhibaanadu cidda koowaad loo adeegayo marka cadowga qaranku xildhibaanada ciidanow maahee waa cid kale iyaga ku mashquula mar dambana ayayna dhicin inaad golaha amar la'aan ku soo gashaan maxamed cumar daariq RTN hargeysa